soo galay meeshana uu jeexday hadduu soo galayna wiilkii kana guriga lagu qabtay wiilka isbitaal Madiina la geeyay shalay haddii isbitaal Madiina la geeyo waxa dheecaana laga qaaday waxa laga helay shahwadii ninka maxay ahayd oo kale ku siyaa jiraal dhahay gudbinaya biritool haddii ilaahay raalka noqdo marba marka ka sii dambaysa social media waxaynu ku aragnaa dhacdada ka sii xanuun badan tahay tan waa dhacdo ka dhacday magaalada Muqdisho khaasatan degmooyinka hoostaga haddaba waa hooyo dhashay laba wiil ana labadeedii wiil mid kamid ah kubsada askari u shaqeynaya dawladda waxaana ay ka dhacday xaafadda Shangaani haddaba hooyadii waxa ay ka warbixinaysaa arrinku sida uu dhacay iyo dabcan sida uu ninka askariga ay kaska ula badheerka ula soo badheeray labadeeda caruura mid kamid ah labada caruura ayaa ahaa laba guriga jooga iyaduna sidoo kale kama ay fogeyn balse askarigu waxa uu ahaa mid hamuun u qaba sidii uu kubsan lahaa labada wiil ugu dambeyntiina waxa uu haleelay mid kamid ah halka mid kalena uu ka baxsaday waxa ay ka warbixinaysaa arrinku sidoo u dhacay sidoo kale sida kaska ah ee ula badheerka cad ah intuu guriga daaqad ama dhinac dhan jeexay intuu ugu soo banaystay aw labadii wiil mid kamid ah halka ku qabsaday kii kalena uu ka cararay ugu dambeyntiina halka dantiisa ka dhamaystay isla markiina uu ka baxay halkii uu markii hore ku soo banaystay qoriga afkiisa halkaas oo ay ka heleen alaabo xabada iyo sidoo kale ramaan iyo sidoo kale nigisaantiisiba guntiga gunaanadkiina isma qaariyo dhagar qabuhuye waxa isla markiiba gacanta lagu soo dhigay askarigi waxaanu waqti xaadirkan lagu hayaa si ay dhiida iyadoo barta waqti xaadirkan uu ku xiran yahay haddii aynu dhacdada xanuunka badan ee wiilka halka kaga nimaadno isla dhacdo lamida waxa ay 4 cisho ka hor ka dhacday gudaha Xamar dhacdadan oo ahayd gabadh lagu kubsaday xamar dhexdeeda haddii kubsigeedaas lagu dayn lahaay dabaq ka dheer yahay inta la saaray meydkeedii laga soo tuuray haddaba waydii ugu dambeysay waxay nagu soo badanayay gudaheena kubsiyada iyadoo loo geysanayay gabdhaha iyo sidoo kale wiilasha yaryar ee aan waxba galabsan waatan haddaba hooyada oo ka warbixinaysa arrinku siduu u dhacay iyo sida kaska ula badheerka ah ee askarigu la soo badheeray caruurteeda mid kamid ah inuu kubsado sidoo kale waxay shaacisay ama hadalkeeda ku darsatay inuu markii guriga soo galaya maxaafadaha soo galayay oo ka dhexridayay xabadaha iyadoo ay dadka ehelka ama dadka jaarka oo dhan ay ahaayeen qaar soo jeeda si kastaba ha noqotee waxa uu ahaa askari ula badheeray kas cadaan oo la soo badheeray sidoo kubsan lahaa caruurta yaryar qaan fiiriyay hadaan fiiriyay waxaan arkay laba nin oo midi yahay dalka dariska militariga wuxuu leeyahay kan kalena wuxuu igu jiraa laabka aniga hadaan sidaan ogaaday wiilkayga yarka ah ay iga xoogeen aan waxaan dhahay hooyo cabsiran meesha ka kacaan dhahay tuuga soo gashay haddaan saan dhahay waa niman i hubsaday inaan ahay maama aan ilmaheedu yar yihiin oo meeshana ila degan aan saas u ogeyn nimanka marka hooyo aniga waa argagaxay maxay ahayd gabadh yareed iyo maxay ahayd aniga waxaan ka baxnay dariishada hadaan hooyo ka baxnayna maxay ahayd oo kale wiilkii loo soo galay meeshana uu jeexday hadduu soo galayna wiilkii xoogay kii kalena waa iska baxiyay kana guriga lagu qabtay wiilka isbitaal Madiina la geeyay shalay haddii isbitaal Madiina la geeyo waxa dheecaana laga qaaday waxa laga helay shahwadii ninka maxay ahayd oo kale ku siyaa jiraal dhahay maantana waxayna soo siiyeen cadeyn wanaagsan ayna soo siiyeen haddana wuu ii xiran yahay CID aan loo gudbinayaa biritool haddii ilaahay raalka noqdo sidoo kale maama Fardowsa waxay salaada hore ugu kalihi jirtay suuqa si waxay cunaan ay ugu soo hesho hase yeeshee waxa qabsatay masiibo ka weyn oo dabcan ah midaad adigu la ilmeysay marka aad dhageysatay haddii aad hore u soo daawatay waxa laga yaabaa inaad hore ugu soo qiirotay haddii kani kugu cusub yahayna waxa laga yaabaa in aad dabcan la qiirotay haddaba maamo Soomaaliyeed waxaana ku habsatay masiibo aad iyo aad u weyn waxaynu ka rajaynaynaa Eebbe subxaanahu wa ta'aala inuu sharciga hor keeno ninka sidaa ku sameeyay sharcigana Ilaahay tuso inkastoo Soomaaliya aynu dhinac ka raranahay marka la eego balse haddana Allah subxaanahu wa ta'aala waxaynu ka baryaynaa maamada Soomaaliyeed caruurteeda sida loo galay in insha Allah ugu dambeyn ninka xabsi daayin ama dil toogasho lagu xukumo inkastoo aanu mid ahayn midka kalena uu baxsaday wali maqadkii baxsidkii ama maqnaashihiina uu ku maqan yahay ka ahay ma fahamtay waxaan ku argagaxnay wax la yaab la xabado la ridaayo ninkii oo meesha jiifo oo buumadii ka siibantay oo surwaal ka siiban yahay oo qoriga ag yaalo oo qalaqi iyo xabadii qolof baalkeedii meesha yaalidii sakiin iyo kobihiisi ana qaaday oo xabadii qolofkeedii
iyo sakiintii iyo kobihiisii alaqi caag ku jiray anaa geeyey saldhigga. hase yeeshee waxa aan laba ilaawaan ahayn dhacdooyinka xanuunka badan ee marba marka kasii dambaysa soo maraya Soomaaliya ee ka dhex dhacaya gudaha Soomaaliya. si kastaba ha noqotee Muqdisho waxa ka dhacay waqtiyadii ugu dambeysay marka laga yimaado qaraxa kubsiyada oo ahaa tacadi aad u daran oo lagu hayay sidoo kale wiilasha. waqti yar ka hor waxa magaalada Muqdisho lagu toogtay niman kubsaday wiil yar iyagoo ay barta afkooda kaga qirteen saxaafadda sidoo kalena maxkamadda hortooda ay ka sheegeen ugu dambeyntii dil toogasho lagu wada xukumay. hase ahaatee cibro ku qaadasho may noqonin balse waxa ay noqdeen waxay marba marka kasii dambaysa ay sii sameynayaan kuma ay cibro qaadanin toogashada lagu xukumayo kuwii ka horeeyay ee falkan sameeyay kuma ay cibro qaadanin xabsi daayinka lagu xukumayo kuwii ka horeeyay ee waxaan sameeyay balse kaliyaata waxa u muuqdo inuu sidoo u kubsan lahaa gabdhaha iyo sidoo kale wiilasha yaryar ee waqti xaadirkan soo koraya sidoo kale hablaha yaryar ee dhalinyarta aan mustaqbalkooda ay u lumin lahaayeen sidoo kale wiilasha iyaguna dabcan ay mustaqbalkooda iyagana u lumin lahaayeen. babaqaan fiiriyay haddaan fiiriyo waxaan arkay laba nin oo midi yahay darka dariska militariga wuxuu leeyahay kan kalena wuxuu igu jiraa laabka aniga haddaan sidaan ogaaday wiilkayga yarka ah ay iga xoogeen waxaan dhahay hooyo cabsiran meesha ka kacaan dhahay tuugaa soo gashay haddaan saan dhahay waa niman i hubsaday inaan ahay maamo aan ilmaheedu yaryar yihiin oo meeshana ila degan aan saas u ogeyn nimanka markaa hooyo aniga waa argagax haddaan argagaxay maxay ahayd gabadhi yareed iyo maxay ahayd aniga waxaan ka baxnay dariishada haddaan hooyo ka baxnayna maxay ahayd oo kale wiilkii loo soo galay meeshana uu jeexday hadduu soo galayna wiilkii uu xoogay kii kalena waa iska bixiyay kana guriga lagu qabtay wiilka isbitaal Madiina la geeyay shay haddii isbitaal Madiina la geeyo waxa dheecaana laga qaaday waxa laga helay shahwadii ninka maxay ahayd oo kale ku siyaa jiraal dhahay maantana waxayna soo siiyeen cadeyn wanaagsan ayna soo siiyeen haddana wuu ii xiran yahay CID aan loo gudbinayaa biritool haddii ilaahay raali ka noqdo haddii ilaahay raali ka noqdo. ugu dambeyn Allah subxaanahu wa ta'ala waxaynu ka baryeynaa inuu xanuunka ka dulqaado gabadha hooyo Fardowsa oo ilmaheedii lagu kubsaday waa dareemi kartaa kulay adiguba qof ilmihiisii oo waliba nin aan la kubsaday sidoo doonto markii laga yeeleen ay halka ka baxeen balse waxa nasiib wanaaga in dawladdu isla markiiba gacanta ay ku soo dhigtay markii ay sheegtay astaamihiisii. si kastaba ha noqotee walaal aynu duceyno Allah subxaanahu wa ta'ala kurbada iyo dhibaatada haysatana ka dulqaado maamada se waxa nasiib darro in ragga iyo dumarka maalinba maalinka ka sii dambaysa wadankeena lagu kubsanayo iyadoo aan loo kala eegaynin inay tani gabar tahay iyo inuu kanini yahay balse ay ragga Soomaaliyeed xiiseynayaan siday dabcan ay u kubsan lahaayeen ummadda iyaguna Soomaalida. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya mawduuceena aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin kamidaanshaha iyo ku soo biiritaanka channelka waxaan rajeynayaa warbixinta inaad ka hesheen muuqaalkan noo xigayno balana.